education. Regular school is followed in the evening by private school. A double shift of schooling, making them some of the most... 예, 대한민국은 1996년도부터 교육 정보와 선진화 sanadkii 1996 ayaa dawladda Korea waxa ay soo saartay qorshe iskuulada waddankaasi lagaga dhigayo kuwa la jaan qaada nidaamka casriga ah ee tiknoolajiyada. sanadkii 2005 waxa ay dawladdu bilowday in fasalada dugsiyada ee waddankaasi Koonfur Korea ay dawladdu ku rakibto nidaamka ICT-ga ee dhinaca tiknoolajiyada oo ay ardaydu isticmaalayaan iyada oo la balaariyay baaxadda mas'uuliyadda macalinka. sidaasi waxa yiri madaxweynaha isutaga ururada macallimiinta ee Koonfur Korea Yan Ok Ahin. 특히 2005년도부터는 학교 현장에 ICT 활용이 한국 정부가 기본적으로 이러한 정책들을 만들어내고 추진하는 waxa ay ahaayeen sababaha ugu muhiimsan ee dawladda Koonfur Korea ay siyaasadan u samaysay inay soo saarto qarnigan 12aad awoodo shaqo iyo sida ugu fiican ee ay ardaydu u wadaagi karaan aragtiyahooda fiican. sidaasi waxa tiri Jeong Min Noh oo ah cilmi baadhe dhinaca waxbarashada ah. tani waa macallimad u sharaxaysa galaaska 10 iyada oo ardayda u sheegaysa in ay kombiyuutarada furaan si ay isula xidhiidhaan. arday kastana wuxuu isticmaalayaa kombiyuutar ama laptop isaga u gaar ah kaas oo si toos ah ugu xidhan ka ay macallimadu gacanta ku hayso. 한국의 학생들이 여러 가지 피사 테스트 waalidiinta reer Koonfur Korea aad ayaa ay ugu faraxsan yihiin ubadkooda maxaa yeelay waxa ay ubadkooda la doonayeen inay bartaan aqoonta iyo waliba xirfadaha dunida qarnigan 12aad looga baahan yahay. si wanaagsan ayaa loo og yahay ardaydayadu waxa ay gaadheen natiijo wacan dhinaca imtixaanaadka marka la eego sida ay sheegtay hay'adda qiimaysa darajada imtixaanaadka adduunka oo dhan ee PISA. mid kale oo kamid ah sababaha ka dambeeya guushan aan gaadhnay ayaa ah iyaduna tartanka ka dhaxeeya jaamacadaha waddanka. sidaasina waxa yiri wasiirka waxbarashada 사이니스가 iyo teknolojiyada Cho Hee Lee. 이런 데서 굉장히 우수한 성적을 내는 건 잘 알려져 있을 텐데요. 그 가장 큰 이제 wasaaradda waxbarashada ee dalkaasi Koonfur Korea ayaa guulo weyn oo dhinaca waxbarashada gaadhay iyada oo casriyeyn lagu sameeyay fasalada iskuulada ee waddankaasi Koonfur Korea. waxaa la bedelay oo dhammaan la casriyeeyay agabkii waxbarashada loo isticmaali jiray iyada oo samuuradihii aynu naqaanay ee gidaarka lagu dhajin jiray laga dhigay qaar tiknoolajiyad ah oo sida screenka TV-ga ay macallimadu halkaasi wax ka hagayso iyada oo waliba ah mid touch screen ah oo samuuradaasi ay ku shaqaynayso taabashada gacanta waana mid tiknoolajiyad ah. sidoo kalena ardaydu ma isticmaalayaan buugaag ee waxay sitaan laptopyo ama iPaddo loogu shubay casharrada kuwaas oo si toos ah ugu xidhan samuuradaasi casriga ah. macallimada ayaa marka ay gaadho layliga ay ardayda u dirtay ee ardaydu ka shaqaynayaan waxa ay samuurada ka soo saaraysaa liiska ardayda iyada oo mid kasta marka ay ku dhufato ay soo baxayso wixii uu qoray. samuurada ayaanay kaga saxaysaa mid kasta wixii uu keenay. waa nidaam casri ah. hay'adda qiimaysaha imtixaanaadka darajada ardaydu ay kala keenaan ee dugsiyada adduunyada oo dhan ee PISA ayaa ku tilmaantay Koonfur Korea inay 10kii sano ee ugu dambeeyay galeysay kaalinta ugu sareysa ama kaalinta labaad ee imtixaanaadka darajada sare ee ardayda reer Koonfur Korea. taasi oo tilmaamaysa in dawladda Korea uu guuleystay qorshaheedii dhinaca waxbarashada ee dib loo casriyeeyay. taasina waxa loo aaneynayaa dawladda Koonfur Korea oo 7.6% GDP-geeda ama dhaqaalaha ay soo saarto ku bixisa dhinaca waxbarashada. maalgelintaasi weyn ayaa keentay in ay ardayda reer Koonfur Korea ay noqdaan kuwa waxbarashadoodu ay aad u sareyso oo waliba ay fiicnaato hindisaha iyo wax soo saarkooda dhinaca tiknoolajiyada ardaydaasi.